dabaq ba halkan ku yaa intaas oo dad baa degan heerka ugu korayaan ah dhulka hadduu dab ka dhaco dabaqa ugu hooseeyo qofka ugu horeeyo dhimanaya waa qofka kor degan mana soo boodi karo mana soo degan karo aniga dadka cilada haysata waa taas meel ayna ka soo boodi karin aysa ka soo degan karin bay degan yihiin waxaan rabaa qof kastoo dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo Ilaahay yaqaana oo u jeeda meesha xaaladda ka jirta inuu dadkayga u istaago si ay u helaan in adeer meel ay leeyihiin adiguba in adeer xil baa ka saaran in adeer ma ahan adiga waa dadkaagii oo kale waa dadkaagii qayb kamid ah duniyo ma mudnid inaad ooydo ilintaasna ay ka imaado laakiin ogow inaad tahay dadka ugu sharta yar inaad tahay dadka aan laga maarmin duniyo waxaan ku leeyahay ma mudnid inay ilin ka imaado Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ibni aadan iswaayay amuur ayaa kala geysay gabadhan duniyo ayaa la yiraahdaa waxay ahayd gabar walaashay ah haddaan sida kale u dhigo sida aad hadda muuqaalka ka arkaysaan gabadha waxa ay aad ola calool xumootay dhibaatada lagu hayo beesha oo ay ayadu ka soo jeedo aniguna waad garanaysaan inaan ahay nin daaroda mareexaansada haddaan sida kale in kugu dhigo xeryaha qaxootiga ee Dadaab xerada Ifo gaar ahaan Xaawajubay gaar ahaan xaafadda N29 ayaan isla joognay duniyo waxaana marqaati ka ah ree Ifo gaar ahaan ree Xaawajubay hal saxan ayaana wax ku wada cunay maadaama aan guriyo isku dhow deganahay hooyadeedna gabar xabiib ah ayay ahayd aamino ayaa la yiraahdaa daris baan ahayn laakiin waxaan u ilaalin jiray ama aan u difaaci jiray sida gabadha mareexaan loo difaaco qofkii dulmiyo wuxuu ahaa nin dulmiyay gabar mareexaan ah ayuu ahaa hil iyo ho la garab taagnaa marqaatina ayadaa ka ah muuqaalka inuu gaarana waan filayaa Soomaalidu waxay kaloo tiraahdaa qabiil meeshuu qof ka joogo waa qabiilku waa ka jooga meeshay laba ka joogaanna qabiilku waa ku idilya inta aan gabadhan iyo eheladeedii aan ka bartay baan idin sheegayaa waxay ahaayeen markaan qaxootiga joognay dadka ugu nasabsan dadka ugu deeqsisan dadka ugu xariiriska badan laakiin Soomaalida dabeecadeeda waxay tahay dabeecad dabagedis u shaqeyso tusaale yar baan idin ka siinayaa Soomaalidu waxay amaantaa wixii aan waxba u tareyn wixii aan waxba galeyn wixii aan waxba u anfacayn wax aysan waxba ugu fadhin bay amaantaa tusaaleheeda haddaan ku siiyana hebel waa bahal dhalay ree hebel waa Soomaalidu marka mar walba waxay amaantaa wixii aan waxba u galeyn sida haddaad maqasho hebel waa bahal dhalay maaragtay bahal wax Soomaali u galay ama caanihiisa ha noqoto ama hilibkiisa ama subag bahal laga keenay maaragtay laakiin maalin walba waxay amaanaan bahal waa libaax dhalay bay ku leeyihiin libaax muxuu noo galaa inuu xoolaha naga cuno ama annaga uu cuno ma ogiyo maxuu noo galaa Soomaalidu waxay caayaan wixii wax taro tusaale yar aan ka siiyo maalin walba waxa laga yaabaa inaad maqasho 10 jeer xooluhu dhalay ayagoo isle xoolaha subagooda hilibkooda caanahooda dhaqashadooda ma ka maarnaa haddaan Soomaalinahay waa maya daqiiqad carruurta haddaan afka loogu hayn caanahooda ma noolaanayaan عين حولات بهدي أنا أفكر لو قبل أما أذي وين آذن عبين بحاول صادقون ولا نسوا تتبع دبت الجيل عاني سوقي ماذا مالي والبلوال عيايا والسكو عيايا سومالي وحيتر هذا حوله وحوله دلي دنيا هدي ما أنت أويدي أو تري قرب استقبال إنك جبا هنا هيقفك كوبات سيدي الإفو
xaafadda N29 xaawajubay aad kugu aha walaalka oo inta aan kugu imaado qadada lookin aan ku dhigi jiray ayadoo gurigaygu uu kugu dhagan yahay oo aan hal xaafad ku wada nooleen laakiin markii dambe aan anigu Soomaaliya soo aaday adiguna aad Yurub aaday aan ku garab taagnaa baan cod iyo calaf iyo mid walba kuula garab taaganahay dunia ahaan haddaan dhanka Soomaalida u soo noqdo qof walba iyo camalkiisaba ha noqotee waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliya markii yoomal qiyaamada tago ka badbaadayo ka xisaab yaraanayo ka cadaab yaraanayo inay beesha ay gabadhan ka dhalatay ay tahay tusaale aan ku siiyo laandheeranimo waa isku soo dhamaynay eber anigu ma dooran inaan ka dhasho beesha daarood beesha mareexaan adigu idaawanayna ma aadan dooran inaad ka dhalato beesha hawiye adigaan kaloo idaawanayo ma aadan ka dooran ama ilaahay kama aadan dalban inaad ka dhalato beesha raxan weyn gabadha duniyahana ilaah kamaysan dooran inay noqoto beesha gabooyo laakiin ilaahay baa na wada abuuray inta markaan kaga soo tago abuurista ilaahay iyo sida aan anagu doorasho la'aan u nahay ifka anagu taagan oo nalay wareebel aan u aragnay yaan haddana waxaan kugu qaacideynaya inay dadka ugu dambiyar dadka ugu dulmiga yar dadka ugu ihsaanka badan inay gabadhan ka soo joodo ayaan anigu aaminsanahay cid war kale iga dhaadhicin kartana haba yaraatee ma jirto yaa Soomaaliya ka badbaada maanta waa nin aan uqdad u gelin walaalkii waranna waa islamayna ever baan iska dhigna dadka nagi laaldheerayaalka ahaa ever baan iska dhigna hubka annaga isku qaadanay dadka naga badbaadayna waa beeshan la cusuriyay marka aan ku leeyahay marka aakhiro yoomal qiyaamo markii la tago way naga dhib yar yihiin waxa weey sida aad la socotaan maanta hadii la yiraahdo daarood iyo hawiya isdirirayo hawiyuhuna wuxuu jeclaan daarood in la jabiyo daaroodkana wuxuu jeclaan in hawiyo la jabiyo hadii la yiraahdo raxan weyn iyo hawiya isdirirayo raxan weynku wuxuu jeclaan in hawiyaha la jabiyo hawiyuhuna wuxuu jeclaan in raxan weynka la jabiyo macalkii in yar oo ilaahay ka badbaadiyay ma ogi dadku waa kuwa hanti bixinayo maal bixinayo iyo ku qori qaatay noqonayaan laakiin beeshan cidna laba diriirin hubna ma qaadan burburki ilaa hadda bal ka waran adoo dambiila ah oo dad abaabulkoodii iyo hanti ku bixiyay in la soo laayo iyo nin gabooyo hadaad masaajid la soo gashaan oo salaad isla xirataan kiineel la aqbali ilaahay baa aqbalka iska leh adigu daalin baad bataabo qabiil taageeray laakiin ninkan aan qabiilka taageerin alla ka cabsi dad u soo wada istaagtaan asaga wax laga aqbaliyo dambiya duniyo ma mudnid inaad ooydo ilintaasna ay ka imaado laakiin ogow inaad tahay dadka ugu sharta yar inaad tahay dadka aan laga maarmin duniyo waxaan ku leeyahay ma mudnid inay ilin ka imaado ma mudnidna inaad ooydo gabar walaashay ah tahay ma mudnid inaad ooydo halna anaa ku xaqiijinaye dadka Soomaaliya ugu dhibka yar adduunkuna uu qirsan yahay ka soo jooda dadka ugu nasabsanna waad ka soo jooda laakiin meesha waxa ku jira sidii aan ku soo maamahay dadka wax taro ayay caayaan dadka waxaan u gelina way amaalaan sida la adligeed aniga ka warsamahaan aqoonis badan ay leedahay hal saxanna wax ku soo wada cunay oo adiga raashin aad soo karisay aan isla cunay aniga adigood ogtahay inaana ka hareyn mar walba ku garab taaganahay ogow walaashay waa aniga warsama xaaji kuna magac dheer birta calanka oo idin leh muuqaalkan gaarsiiya walaashay duniyo